kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel walba oo dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka kuwoodii ugu door corona qodobada daawadayaal aan idinkugu hayo waxa ka mid noqonaya ururka Xamaas oo la soo baxay markaasi awood dheeraad ah iyo sidoo kale dunida oo la yaaban haddaba maxay tahay awoodan ay la soo baxeen barnaamijka ayaynu idinkugu haynaa sidoo kale barnaamijka daawadayaal waxaad ku daawan doontaan hadduu Rabbi idmo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo xabsiga loo taxaabay haddaba qaab la yaab leh iyo dhacdo la yaab leh ayaa ka dhacay gurigiisa sida loo soo qabtay halkan ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan hadduu Rabbi idmo markaasi cabsida Soomaalidu ay ka qabtay markaasi heshiiskii dhaxmaray Somaliland iyo Ethiopia oo sabab u noqday in Ethiopia la heshiiyo haddaba maxay tahay wadadii loo maray heshiiskii Soomaaliya iyo Ethiopia barnaamijka ayaynu daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal waxaad maqli doontaan markaasi heshiiska ay gaareen Xamaas iyo sidoo kale Israel qodobadii ka soo baxay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka hadduu Rabbi idmo waxaad ku daawan doontaan Iran iyo dilkii loo geysan rabay Donald Trump oo markii ugu horeysay ay ka hadleen haddaba qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijka idinku hayaa hadii aad ku cusub tahay subscribe noo saar saaxiibadaada gaarsi waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada wararkeena hadii aynu ku bilaawno markaasi Xamaas waxa la leeyahay arin cajaa'ib ah oo la yaab ku noqotay ayay la soo baxeen Xamaas awalka hore dadka waxa ay ogaayeen in markaasi duqeymo iyo dagaal joogto ah lagu hayay sidoo kalena burburin lagu hayay haddaba xokayaha arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo Blinken ee waqtigu ka sii dhamaaday maalmaha soo socdana xokayo cusub oo bedeli doono ayaa ka hadlay arintan ayaa waxa ay tahay markaasi in la leeyahay dadka dhintay Falastiiniyiinta oo gaaraya 46,000 in ka badan dad ah ayaa waxa la leeyahay intaasi dhimatay in la mid ah ay qorteen oo askar ah oo markaasi tababar waliba ay u fureen waana wax dunida dhan cajaa'ib la noqotay markii la sheegay in 46,000 oo askari ah intii dagaalka 10 bilood socday ay markaasi ay Xamaas qortay waana wax la yaab ku noqotay sidoo kale heshiiskii markaasi waxa la leeyahay meel gabagaba ayuu marayaa oo markaasi waxa laga yaabaa in todobaadyada soo socdo sidoo kale la soo gabagabeeyay heshiiskaasi laakiin Israel ayaa waxa la leeyahay cabsi aad u xoogan ayaa soo wajahday kadib markii dadka saalaaya arrimaha amniga iyo siyaasadda ay leeyihiin in Xamaas wax dhibaato aan loo geysanin burburkii ay sheegaysay markaasi Israa'iiliyiintu uu yahay mid been ah guuldaran ku soo dhamaaday sidoo kale deegaanada ay ku jireen ay ka bixeen ciidamada Israa'iiliyiintu iyagoo markaasi ku rajo weynaa in marka dhulkaasi cagta ay mariyaan balse tirakoobiyo iyo sidoo kale muuqaalo qarsoodi ah oo la helay ayaa tilmaamaya in markaasi Israel ay qoratay ciidankii ugu adka abid ee Soomara iyagoo markaasi qortay 46,000 oo qofood oo markaasi tababara ay u sameeyeen sidoo kale ururada kale ka dagaalama ee yaryarka iyagana waxa la leeyahay awalka hore meelaha ay ka ahaayeen 7,000 iyaguna waxa ay haatan marayaan 25,000 oo dad ah oo markaasi iska diiwaan geliya Donald Trump ayaa sidoo kale arrimahaani waxa la leeyahay waxa laga yaabaa inuu soo firageliyo waxaana laga yaabaa isniinta soo socota marka xilka la wareego in markaasi uu ka hadlo haddaba waxyaabahaasi markaasi la yaab ka noqotay ayay ka mid tahay in Xamaas awoodeediba aan la taabanin oo waliba sideedii ay u taagan tahay arinta kale ugu muhiimsan waxa ay noqotay marka Soomaaliya arinta heshiiska Ethiopia ee Ankara lagu gaaray waxa la leeyahay waxa soo dadajisay kadib markii siyaasiyiin badan oo markaasi la taliyaal iyo mas'uuliyiin sare oo Mareykan ah oo diblomaasiyiin ah in ay ka shaqeynayaan in markaasi la aqoonsado Somaliland waxaana la leeyahay dadkaasi waxa ay ka shaqeynayeen amaba institutiono loogu talagalay in markaasi warbixino ay ka diyaariyaan Somaliland sida doorashada ay u qabatay sida amniga ay u sugtay iyo sidoo kale dhaqaalaha iyo horumarka ay sameeyeen Somaliland 30 sano ee la soo dhaafay ayaa waxa la leeyahay waxayba u dhigantaa in dawlad loo aqoonsado
waana cabsida inta ugu badan ee dadka markaas Soomaaliyeed ay wajahayeen kadib doorashadii markaasi la doortay Donald Trump ayaa dadka u dhow sida agaasimaha CIA-da iyo sidoo kale xafiiska shaqada iyo shaqaalaha ee madaxtooyada arrimaha dibadda ku xigeenkiisa xokayaha waxa la leeyahay dhamaantooda waxa ay yihiin kuwo markaasi taageersan arrimaha Somaliland waana sababta soo dedejisay Ankara in markaasi la iskugu tago oo markaasi lagu heshiiyo waxaana gadaal ka riixaya ayaa la leeyahay arintani dawladda Soomaaliya oo markaasi iyada dalbanaysay waxaana ka muuqatay dawladda Soomaaliya degdeg badan maadaama iyada ay tahay wadankii lagu soo gardarooday haddana iyadu in ay tagtay markaasi Ethiopia sidoo kale heshiiskaasi ay qayb ka noqotay haddii aynu aadno dhinacaas iyo Kuuriyada Koonfureed waxa ka dhacday arin aad cajaa'ib ah madaxweynihii dalkaasi ninka lagu magacaabayay Yoon Suk ayaa aad loo soo xiri waayay saddexdii bishii hore Janaayo ayaa markaasi warqad warrant oo lagu soo xiraayay loo jaray laakiin ilaaladiisa iyo sidoo kale dad markaasi isaga taageersan ayaa diiday in la xiro madaxweynaha maadaama uu isaga xafiiska xilligaasi joogay xilkana laga xayuubiyay way adkaatay in markaasi la soo xiro madaxweynahaasi gurigiisa waxa la leeyahay waxa lagu xiray xindaab silig oo loogu talagalay markaasi in ciidamadu aysan ka soo gudbin ciidamadu si kasta oo ay markaasi iskugu talagaleen in madaxweynahaas ay soo xiraan way adkaatay laakiin maanta ayaa la soo xiray ciidamadu haddaba maxay sameeyeen markaasi dambi baariyaasha ahaa ee tagay guriga madaxweynaha ugu horeen waxa ay sameeyeen albaabkii waa ay ka gali waayeen waxa ayna markaasi ka boodeen darbiga guriga madaxweynaha waxaana ku xirnaa silig waxaa la sheegay in qalab ay u isticmaaleen in ay markaasi ay ku jiraan silig ku wareegsanaa guriga madaxweynaha kadibna sidaas ay ugu daateen guriga madaxweynaha waana dhacdooyinka markaasi la yaabka noqday ee markaasi ilaa iyo haatan marka la yaaban yahay Iran waxay ka hadashay dilkii loo geysan rabay Donald Trump xilliga doorashada markaasi ololaha doorashada ay socotay ninka lagu magacaabo markaasi madaxweynaha dalkaasi ayaa arintani ka hadlay waxa uu tilmaamay in dalkiisu marnaba uusan qorsheynaynin in uu dilo Donald Trump haatan aysan maskaxdooda ku jirin in markaasi ay la dagaalamaan Donald Trump Iran hore sidaan oo kale way u beenisay balse waxa la soo qabtay dad markaasi lagu tuhunsanaa in Iran xiriir ay la leeyihiin ama qaarkood u dhashay dalkaasi Iran oo la leeyahay waxa ay ka dambeeyeen shirqoolkii lagu dili rabay madaxweyne Donald Trump oo markaasi ku jiray ololaha doorashada waana markaasi sida muuqaalo qaarkood laga arki karay madaxweynaha in dhaawac xataa ay ka soo gaartay dhinaca dhagta oo ay markaasi rasaastii ama lagu riday sujuudda markaasi inay ugu dhacday la filanayay in dhagta ay markaa uga dhacday waana tan markaasi la leeyahay madaxweynaha dil toogasho ka badbaaday oo markaasi u geysan rabeen dad kale balse Iran waxay dalbanaysaa in haatan ay la hadli karto Donald Trump arrimaha ugu muhiimsan ay tahay amniga iyadoo gobolka dagaal aan loo rabin sidoo kalena waxay ka hadleen hubka nuclear-ka ay isticmaalaan iyagoo sheegay in shuruudihii hore la isticmaali jiray sidoo kale wali ay isticmaalayaan waana arinta ugu muhiimsan ee haatan Donald Trump ku kalifaysa sida la leeyahay in cadaadis xooggan oo sii saaro Iran maadaama xulufada ay ku lahayd gobolka qaarkood markaasi meesha uu ka baxay sida Iran waxa ay saaxiibo la ahayd Suuriya iyadana meesha ay ka baxday sidoo kale Hezbollah ay meesha ku lahayd oo taageero badan ay ku haysatay iyadana sidoo kale waxa la leeyahay awoodii Hezbollah halkaas ay ku dhamaatay Hamas ay awood ku lahayd iyadana sidoo kale Hamasna waxa la leeyahay awoodoodii dhinaca militariga uu dhisan yahay laakiin dhaqdhaqaaq iyo sidoo kale in banaanka ay yimaadaan way adag tahay waxaana sidoo kale laga baqayaa arinta ugu muhiimsan ay tahay in Israel iyo Mareykanka ay markaasi qorsheynayaan in Iran dhulka lagu daro oo dagaal in lagu qaado waa uu ka hadlay madaxweynaha dalkaasi waxa uu tilmaamay in cid kasta oo ku soo gardarooto ay iska celin doonaan Zelensky waxa uu ka hadlay isagana arrimaha muhiimka ah kadib doorashadii Donald Trump waxa uu dalbaday madaxweynaha dalkaasi in markaasi uu ka qayb qaato sidii Ruushka looga celin lahaa Ukraine Zelensky waxa uu tilmaamay markaasi
in sanadihii ugu dambeeyay dhibaato badan ay kala kulmeen iskana celiyeen Ruushka balse arinta ugu muhiimsan ay tahay in haatan maadaama isbedel uu ku imaanayo Mareykanka in wali la sii xoojiyo waxa uu dalbaday in markaasi ay helaan amni la isku haleyn karo hadii markaasi dagaalka xitaa la joojinayo guud ahaan daawadayaal intaas ayaana ku soo afmeeraya barnaamijka wararka caalamka hadii aad nala soo gaartay qaybtan ugu dambayso oo aad ku mahadsan tahay daawashada ila socoshada wararkeena hadii aad ku cusub tahay subscribe noo saar saaxiibadaadana gaarsii